kulan wacan daawadayaal meel walba aad dunida ka joogtaan iyo si walba oo muuqaalkayga idin soo gaaraya waxaad kusoo dhawaataan barnaamij gaar ah haylooban inaad soona official aad subscribe saarto hadduu subscribe ku saarneen dhanka kaamirada waxaa iga qaabanaya mr miya meel walba aad joogtaan daawadayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkan gaarka ah oo aan uga hadli doono maxaa fanka haleeyay barnaamijka waxaa diiradda inoo saaran waa laba fanaan oo kale ah iqriyarey iyo sidoo kale gabadha fanka kusoo dib ugu soo noqotay ee mun xafiis dabcan kusoo dhawada barnaamijkan waa barnaamijkaaga mun xafiis waxa ay soo qaaday heestan la yiraahdo maxaa fanka haleeyay maya mun xafiis waxa ay soo qaaday heestan la yiraahdo arrimaha jacaylka laakiin waxaad moodaa birada in loo xilo dhahay ariyaa ya waa bayaabana say birada u luxayso ariyaa ma fanad ku jirtaa masgalate waa is soo bandhige iyagu socotaa mun xafiis waxaad moodaa atirisho bollywoodka ka hadlaysa atirisho bollywood ku jirto oo dheel la dhahay oo kale arrimaha jacayl labay taagan tahay asay isu walaaqe yaa waxa waaye jacayl marka laga hadlayo noocaas maa loo dhaqmaa wax kale waaye mun xafiis dabcan heestaada way shidan tahay heestaada muuqaalkaaga wuu shidan yahay laakiin waxaa kaa maqan keliya dabcan markii hees jacayl aad qaadayso dansiga waalida ah looma baahno dabcan heestii eryada iyo musica inaba caadi ma ahan laakiin sidaad u dansi karaanayso waa wrong waa qalad dabcan fanka soomaalida saas ma ahan fan soomaaliyeed sidaa ma ahan fankii hore iyo fanka maanta jooga isku mid ma ahan dabcan fanka waxaa ka mid ah gabadha fanaanada markii ay soo qaadayso hees marka ugu horeysa waa in ay yacni baageeda iyada walaaqaysa soo dhigtaa war xasfan ma ahan fanaaniinta soomaaliyeed guud ahaan waxaad moodaa gabdhaha ee fanka soomaalida ku jira too weliba u fiirso marka ugu horeysa waxay soo bandhigaysa waa jirkeeda iyo baageeda fankii soomaaliyeed qiimaha badnaa waxaad moodaa in dhulka lala galay arrimaha jacaylka leedahay jacayl ay bag hadlaysaaye maxay tahay aan leeyahay yacni arrimaha jacaylka leedahay jacayl waxaan u arki jirnay loo ilmeeya loo qushuuco arki jirnay laakiin jacayl dansi wali ah loo qaadayo ma shifna wala aragna ariyaa naga bedela sidaas maxay tahay la yidhi arag maxaan leedahay tan araya beraday walaaqaysaa ma leeyahay waxa waaye fankii soomaalida waxaad moodaa inuu beryahan dambe sii halaabayo yacni heer waxaan joognaa mursal faldegan uu tubaac kuu matalayo fortuun balbalaarkuna xaliima khaliif magool kuu matalayso waa qarni cajiib ah dabcan fankii waxaad moodaa in god lala galay hadda wuxuu fankii noqday haddaa hadli karto waa heesi kartaa stop gareeya markaan yacni mun xafiis halkaasaan kaga keenaynaa iqriyarey beryahan dambe iyadana heesaha koobiga inta badan qaadaa heestan hadda ay qaadayso hees xusuus hore loo qaaday qadar daahir ciga ayaa iska leh heestan qadar daahir ciga iska leh waan daalanay ahaa ay leedahay laakiin ayadana sidoo kale ayadana baageeda ay kusoo bandhigaysaa heestii oo dhana waxay noqotay in yacni dad model inay ku jiraan aad moodaa ama bollywood film bollywood ama hollywood ay matalayaan ama inay yihiin fanaaniinta north america iyo sidoo kale fanaaniintan u dhalatay dalka hindiya iyo sidoo kale fanaaniintan caalamka ka haysta dabcan fanaaniinta soomaaliyeed iyo fanaaniintii hore ee soomaaliyeed iyo fanaaniintan waxaad moodaa in uu u dhexeeyo farqi aada u weyn kaas yacni gabadha soomaalida ee fanka ku jirta fankeeda xilligan wuxuu noqday inay eed isku soo bandhigto jirkeeda kusoo bandhigta areekaas fan mahana naga bedela yani waxaad moodaa marka asxaabay dabcan iqriyarey way ujeedaan ayadana nala daawada iqriyarey waxyaab leh waayaan xaqiiqatan fankii soomaaliyeed finish ayuu noqday
si kasta ay ahaataba waa ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan barnaamijkan maxaa fanka haligay wuxuu noo noqon doonaa barnaamij taxane ah halkan ayaan ka wada xiriiri doonaa dabcan dhanka kaamirada wuxuu ahaa Ismaaciil MR Miya waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan tan intaan ku kulmayno barnaamij caynkana oo kale waa lama kala xanaaqaan tan intaan ku kulmayno barnaamij caynkana oo kale waxaan kaga tagay sidaas iyo nabadgelyo